kulankan oo ahaa mid wada tashi ah inay isugu yimaadeen haweenka saddexda gobol ee maamul goboleedka Jubbaland ayna soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland isla markaasina socon doono muddo 5 maalmood ah ayaa waxa uu maanta ka qabsoomay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana kulankan ka soo qayb galay xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland oo horkacaya madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud iyo haweenka kala socday saddexda gobol ee maamul goboleedka Jubbaland ugu horreyn waxaa madasha si wadajir ah uga hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajila iyo gudoomiyaha ururka haweenka saddexda gobol ee maamul goboleedka Jubbaland Badraan Maxamed Cabdulle iyo sidoo kale xildhibaanad Faadimo Faarax oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland waxaana hadaladooda kamid ahaa runtii aad bay farxad loogu tahay musaaka halkan idinkala soo qayb galno xafladan qiimaha leh waan u mahadcelinaynaa wasaaradda haweenka iyo waxaan leenahay haweenka ka yimi degmooyinka gobollada Jubbaland soo dhawaada haddana inay maamuladii haweenka oo saddexda gobol isu yimaadaan waa fursad weeye aad baan soo dhaweynaynaa aad baan hadda u farxadeed wax la soo goobi kara ma aha maalinkay tiri wasaaradda haweenka ay tiri wasiiradda waxa loo baahan yahay saddexdii gobol gabdhahood in la isu keeno aad baan ugu farxsanaa waayo Jubbada gabdhahood muddo badan ma arkin gado sidoo kale ayagana muddo hore ugu dambeysay gabdhaha ma arkin maanta farxad iga weyn ma jirto oo aan leeyahay maanta farxad ka weyn mudana wasiir adigana hawlihi aad gashay oo raadisay TIS plus oo la xariirtay waan kaaga mahadcelinaya haweenkan waa haweenkii saddexda gobol deganaa waxaan leeyahay adinkana waxyaalaha la idin barayaa si fiican u barataan oo wixii adinka la idin baran aad gaarsiisaan goboladiinni saddexda gobol waxaan taageersanahay anigoo ku hadlayo afro baarlamaanka xildhibaanada Jubbaland saddexda gobol haweenka ka yimid oo sharafta leh oo meesha isugu yimid waxaan aad u salaamayaa wasaaradda haweenka wasiiradda oo maaragtay ilaahay ba mahadcelinayna sida sharafta leh oo meesha isugu keenay annagu haddii aan nahay xildhibaanada Jubbaland haweenku waa haldoorka Jubbaland iyo lafdhabarka meesha waa weeye hadda halka waxa la isugu yimid isdhexgalka cadaaladda sinaanta in maxaa la yidhaahdaa nabadda maxaa la yidhaahdaa xibinta ugu sarreyso oo maxaa la yidhaahdaa Soomaalida Jubbaland hadda ku nool waxaa sidoo kale hadalka qaatay wasiirka arrimaha bulshada iyo waxbarashada Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahim iyo sidoo kale wasiiradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Qamar Deeq Khaliif isku imaashada halkan isugu imaatee ee seminaarkan 5 maalmood arrintiina way ka weynta waxaa la doonayaa mar haddaad isku imaatee dhowr iyo 20 sano ayaa dhibaato weyn lagu soo jiray dhowr iyo 10 sano waxaa la haleynayay dhowr iyo 10 sano nafta la goynayay dhowr iyo 10 sano guryaha la baabiinayay dhowr iyo 10 sano dadku gacanta ka baxsan waxaa la rabaa isku imaashada muhiim baad ka tihi maanta waxay tahay farxad weyn in aan maanta waxaan ku riyoonayaa ay suura gasho in gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ay isku imaadaan ama aniga fursad u helo in aan goboladooda ugu tago waana insha Allah marka waxaan tagi doonaa gobolooyinka Jubbada saddexda gobol ay ka kooban tahay inta hadda la tagi karo inaan tago ayaan maxaa insha Allah i qorshaysan meeshooda ugu imaan doona laakiin maanta waxaan ka maqanahay goobihii shaqada waxaan ka maqanahay goobihii dhaqaalaha waxaan ka maqanahay goobaha waxbarashada waxaan ka maqanahay goobaha siyaasadda lagu qaybsado marka maanta idinka oo aan wada tashi gabdhaha Soomaaliyeed ay yihiin sidaan bal siyaasadda ay qayb gali lahayn aan kor u kici lahayn aan arrimaheena dawladda u bandhigi lahayn iyo wax ka soo bixi lahaa isku meeshadiina ugu dambeyn waxaa kulanka ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud waxaana uu yiri maanta meeshaan waxaa fadhiya haweenka saddexda gobol ee Jubbaland farxad bay tahay inaad kala soo qayb galo munaasabadda qiimaha leh oo dadku dhow leeyihiin wasiirada xildhibaanada meediyaha aqoon-yahanada gado waa tegaynaa diyaarada Jubbada hoose waa tegaynaa Jubbada dhexena waa horeynaynaa wada tashiga haweenka degan Jubbaland waa furiin
kulankan oo loogu talagalay isdhexgalka haweenka iyo sidii ay iskugu diyaarin lahaayeen ka qayb qaadashada arrimaha siyaasadda Jubbaland ayaa la filayaa in inta uu soconayo ay ka soo bixi doonaan arrimo dan u ah haweenka maamul goboleedka Jubbaland. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga caalamiga Star, magaalada Kismaayo.